waxaa kaloo haddana la sunneeyaa qofka markii macnaha ou afuro inuu ku ducaysto ducadii ma'huurka ahayd oo macnaha laga soo guuriyey rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam oo ahayd allaahuma laka sumtu wa calaa risqika afdartu wa bika aamantu wa calayka tawakkaltu dahaba adama'u wabtallat alcuruuqu wa habata alajru in shaa allahu tacaala ducadaas inuu ku ducaysto yaa waasica alfadli ikfir lii alxamdu lilaahi aladii hadaanii fasumtu warazaqanii faafdartu oo macnaheedu uu yahay allaahuma yaa allaahu allahayow sumtu waan soomay laka liajlika adiga dartahan u soomay wa afdartu waa afuray calaa risqiga risqigaadan ku afuray wa aamantu waa rumeeyey bika birubuubiyatika rabbinimadaadan rumeeyey wa tawakkaltu waan tala saartay calayka dushaada dahabadama oo oonkii waa tegay wabtallat alcuruuqu xididihiina waa qoyeen wa habata alajru ajarkii soonkana waa sugnaaday in shaa allahu tacaala haddii alle uu doonay waay yaa waasica alfadli fadligiisa allihii waasaca uu ahaayo ikfir lii ilaahu ii dhaaf alxamdu lilaah ilaaha mahadle alladii allihii hadaanii i hanuuniyey oo fa sumta aan soomay oo soomkana asaa igu hanuuniyey warazaqanii haddana i irsaaqa oo fa afdartu aan afuray hadduuse irsaaqi lahan waxaan ku afuri ma heli lahan waay ducadaas ayadana waa duco muhiim ah oo sunno ah oo ajir badan qofka markuu uu afuro inuu ku ducaysto